ay yihiin ciidanka ka yimid Talyaaniga ee maanta soo gaaray Muqdisho. Ra'iisul Wasaare Xamse oo magacaabay guddi 9 xubnooda Uganda oo shaacisay waxay kadib weerarkii Buulamareer ee askarta looga ilaayay iyo weliba sidoo kale Puntland oo war cusub ka soo saartay doorashada Garowe iyo 2 degmo oo kale. Qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaan dul istaagi doonaa. Soo dhawaada muuqaalka si sheegay haddii tahay markii ugu horreysay YouTube soo booqato fadlan subscribe dhawaad gambalelkana furo ku mahadsanidin. Aynu ku bilownay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa maanta soo gaaray cutubyo ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliya kuwaas oo tababar ku soo qaatay dalka Talyaaniga oo ka mid ah dalalka waaweyn ee taageera dowladda dhexe. Ciidamadan ayaa waxaa gudaha garoonka ku soo dhaweeyay taliyaha ku-xigeenka booliska Soomaaliya Sareeya Guuta Cismaan Maxamed Cabdullaahi Kaniif, safiirka Talyaaniga u jooga Muqdisho iyo saraakiil kale oo ugu tagay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde. Taliyaha Kaniif oo ka hadlay munaasabadda soo dhaweynta ayaa khudbad dardaaran ah u jeediyay askartan ee dowladda Soomaaliya u soo tababaray Talyaaniga. Waxaan idinku ammaanayaa dhabar adeega, akhlaaqda iyo kartida aad ku muujiseen inta aad tababarka ku jirteen oo dalka aad ka maqnaydeen, ayuu yidhi Taliya Kaniif. Sidoo kale waxa uu tilmaamay inay ka qayb qaadan doonaan howlaha shaqo ee booliska Soomaaliyeed isaga oo u baaqay inay si hufan leh ugu adeegaan dadkooda. Waxaad keenteen wanaag iyo sharaf aad ku soo siyaaseen ciidanka booliska iyo sharaf aad ugu adeegi doontaan dadkiina, ayuu sii raaciyay. Taliya ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliya oo hadalkiisa sii wata ayaa si gaar ah u mahadceliyay dowladda Talyaaniga oo isku xil saartay tababarka ciidamadan cusub oo ku biiraya booliska Soomaaliyeed oo haatan howlgalo ka wada gudaha magaalada Muqdisho. Ugu dambeyn, waxaan u mahadcelinayaa dowladda Talyaaniga, safiirka iyo macallimiintii idin soo tababartay dhammaantood guul ayaan idin rajaynayaa, ayuu mar kale yidhi. Talyaaniga ayaa ka mid ah dalalka reer Yurub ee haatan xiriirka wanaagsan la leh Soomaaliya wuxuuna taageero kala duwan siiyaa dowladda federaalka. Si kastaba, ciidamadan cusub ee tababarka ku soo qaatay Talyaaniga ayaa ku soo aaday xilli loo baahnaa isla markaana uu dalka ka socdo qorshe lagu sugayo amniga guud. Dhanka kale, Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa maanta magacaabay guddi cusub. Guddigan cusub ayaa waxa uu Ra'iisul Wasaaraha u xil saaray qabanqaabada xuska sanad guurada 63 ee maalmaha xorriyadda kuwaasi oo ka kooban 8 wasiir iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre oo garowsan qiimaha iyo mudnaanta ay leedahay sanad guurada 63 ee gobonimada, midnimada iyo dhalashadii Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa waxa uu magacaabay guddiga qabanqaabada xuska sanad guurada 63 ee maalmaha xorriyadda ayaa lagu yeeray wareegto ka soo baxday xafiiska Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre. Guddigan cusub ayaa waxaa gudoomiyay ka wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Mudane Axmed Macalin Fiqi. Sidoo kale waxaa xubno ka ah wasiirka warfaafinta, dhaqanka iyo dalxiiska Mudane Daawud Aweys Jaamac, wasiirka amniga gudaha Maxamed Axmed Sheekh Cali Dudishe, wasiirka maaliyadda Dr. Cilmi Maxamed Nuur, wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Mudane Maxamed Maxamuud Barre iyo wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka Marwa Khadiija Maxamed Diiriye. Xubnahan guddigan ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Mudane Biixi Iimaan Ige, wasiirka xanaanada xoolaha, dhirta iyo daaqa Mudane Xasan Xuseen Maxamed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Sheekh Yuusuf Xuseen Madaale. Si kastaba, guddigan cusub ee maanta u magacaabay Ra'iisul Wasaare Xamse ayaa ka shaqeyn doona qabanqaabada xuska maalmaha xorriyadda oo aad muhiim ugu ah shacabka Soomaaliyeed iyo midnimadooda. Dhanka kale, dowladda Uganda ayaa shaacisay tallaabada xigta ay qaadayaan kadib weerarkii Buulamareer ee kooxda Al-Shabaab ku qaaday saldhiggooda kaasi oo looga dilay askar badan. Uganda ayaa sheegtay in weerarkaasi ay hore uga sii soconayaan ciidamadeedu isla markaana aysan dhacdadaasi wiiqi doonin hadafkeeda ay u joogaan gudaha Soomaaliya ee howlgalka ATMIS ex AMISOM. Kusimaha safiirka Uganda ee Soomaaliya Sareeya Gaas Nathan Mugisha oo booqday ciidamadii dhawaan ku dhaawacmay weerarkii Buulamareer ayaa ka dhawaajiyay in ciidamada Uganda ay ka go'an tahay inay fuliyaan waajibaadka howlgalka ATMIS iyada oo toddobaadkii hore la weeraray saldhiggooda. Waxaan dejinay xaaladda waxaana socda dib u eegidda iyadoo horeyna loo sii socon doono sidii loo qorsheeyay. Dhacdadu nagama wiiqi doonto hadafkeena, ayuu yidhi Sareeya Gaas Mugisha. Waxaan sii wadi doonaa gedi socodka xasilinta Soomaaliya anagoo taageerayna dowladda federaalka, ciidanka xoogga dalka
iyo shacabka si ay u helaan xasilooni, horumar dhaqaale iyo isbeddel. Arrintan ayaa imanaysa xilli dowladda Uganda ay wajahayso cadaadis gudaha, isla markaana dadka reer Uganda qaarkood ay dalbadeen in ciidamada laga soo saaro Soomaaliya, maadaama ay sheegeen in si bahalnimo ah ugu dhimanayaan dal kale, halka qaar kale ay dowladda u soo jeediyeen in loo argudo askartooda. Waa dareen isugu jira, qaar waxay nagu tirsanayaan inaan argudano, qaar kalena waxay doonayaan in ciidanka laga soo saaro sababtoo ah waxay leeyihiin ciidanka waddankeena uma dhimanayaan ee dad kale ayay madaxooda ku dhimanayaan, ayuu yidhi afhayeenka ciidanka Uganda oo wareysi siiyey VOA, ugana hadlay markaasi dareenka u yimid dadka reer Uganda. Uganda ayaa doonaysa in joogitaankeeda Soomaaliya xilligan uusan waxba iska bedelin kadib weerarkii Buulamareer ee looga dilay askar badan. Weerarka Buulamareer ayaa waxaa la sheegay in Uganda looga dilay ilaa 54 askari, sida uu shaaciyey madaxweynaha dowladda Uganda Yoweri Museveni. Tiradan ayaa aad uga yar midii horey ee shaaciyeen Al-Shabaab oo gaaraysa ilaa 137 askari oo ka tirsan ciidamada Uganda. Sheegashadan ma aha mid si madax bannaan loo xaqiijiyey. Si kastaba, weerarkii Buulamareer oo dhacay 26kii bishii hore ee May ayaa ka mid noqday mid ka mid ah weeraradii ugu khasaaraha badnaa ee kooxda Al-Shabaab kala kulmaan ciidamada ATMIS. Dhanka kale, guddiga ku-meel gaarka ee doorashooyinka Puntland oo ka hadlay doorashada Garowe iyo 2 degmo oo kale oo hore u hakiyeen ayaa waxay rajo wanaagsan ku muujiyeen in xal laga gaaro khilaafka siyaasadeed iyo amni ee saameynta ku yeeshay saddexdaasi degmo. Gudoomiyaha guddiga ku-meel gaarka ee doorashooyinka Puntland oo la hadlay BBC-da ayaa sheegay in xalka gaarista doorashada golaha deegaanka ee 3 degmo ay ku howlan yihiin wasaaradda arrimaha gudaha iyo odayaasha dhaqanka. Waxa uu xusay in wadahadalka arrintan la xiriira uu meel fiican marayo, isla markaana maalmaha soo aadan loo wado in la shaaciyo jadwalka qabsoomidda doorashada saddexdaasi degmo. Sidaad la socotiin, waa inay hakinay 3 degmo sababtoo farsamo iyo amni oo markaasi jiray. Welina waxaan war ka sugaynaa hay'adaha dowladda ee arrimahaasi qusayso iyo bahda dhaqanka. Meel wanaagsan ayayna maraysaa, markay soo dhamaato ayaanu shaacin doonaa xilliga ay deegaanadaasi doorashada ka qabsoomayso, ayuu yidhi Gudoomiye Cabdirasaaq Axmed Siciid. Sidoo kale waxa uu ka dhawaajiyay in hadda aysan jirin caqabad weyn oo hortaagan doorashada 3 degmo, hase yeeshee ay fursad siinayaan in xal siyaasadeed laga gaaro qabsoomidda. Wax hadda taagan oo caqabad weyn ma jiraan, annaga gudi ahaan wax hadda taagan oo aan ognahay ma jiro, laakiin maadaama ay markii hore u hakisay sababo markaa jiray oo siyaasadeed ama amni, marka in sababihii qaab xal ah looga saaro unbaa lagu mashquulsanaa. Annaguna maadaama aan fursad siinay intii ku howlanayd arrimahaasi xaliso, welina fursadii baan weli siinaynaa oo war baan ka sugaynay, laakiin wax dhibaato oo hadda taagan ma ogi, ayuu yidhi Gudoomiye Cabdirasaaq oo la hadlay BBC-da. Guddiga ku-meel gaarka ee doorashooyinka Puntland ayaa 24kii May ku dhawaaqay in xaalad amni oo soo kordhay darteed loo hakiyay doorashada degmada Garowe oo qorsho ah inay ka qabsoonto doorashadii dhacday 25kii bishii hore. Sidoo kale waxaa xilligaasi guddiga hakiyay doorashada dowladaha hoose ee degmooyinka Dangoryo iyo Godob Jiraan kadib markii uu qiimeyn ku sameeyay xaalka guud ee shaqada doorashada. Guddiga ayaa waxaa markaasi qiray muhiimadda ay leedahay deganaanshaha iyo in wadahadal lagu xaliyo wax kasta oo lagu kala duwan yahay oo la xiriira doorashada dowladaha hoose ee saddexdaasi degmo. Arrimahan ayaa imanaya xilli ay socdaan wadahadallo la xiriira arrintan, iyadoo weli ciidamadii hortaagan doorashada ay ku sugan yihiin duleedka magaalada Garowe, kuwaasi oo ka biyo diidan go-aan dhowaan ka soo baxay guddi arrimahan loo xilsaaray oo go'aamiyey in fariisimahooda ku laabtaan ciidamadu. Dowladda muuqaalkan intaas ayuu ku yahay. Muuqaalkan muuqaal xigeentaan oo kulmi doona sidaasi nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.